dhisida iyo kor u qaadista goobihii burburka xooggan uu ka soo gaaray dagaaladii sokeeye ee ka qarxay dalkeena Soomaaliya ayaa ah mid kor u qaadaysa bilicda iyo maqaamka caasimadu ay leedahay. magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka soconayay dadaalo dib loogu soo celinayo goobaha danta guud ee uu burburka xooggan ka soo gaaray dagaaladii sokeeye ee ka qarxay dalkeena Soomaaliya sanadkii 1990. maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sanadkan aynu ku guda jirno gudihiisa waxa uu ku dhawaaqay in si iska wax u qabso lagu dhiso goobaha danta guud ee burburka xooggan uu ka muuqanayo. hadalka madaxweynaha kadib ayaa waxa wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ay bilaabeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen barnaamijkan uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, iyadoona durbaba ay ka bilaabeen sidii dib loogu soo celin lahaa maqaamkii uu lahaa xarunta tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed. wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda kale ee dawladda dhexe ee dalka ayaa muddooyinkii dambe waxa ay xarunta tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ka wadeen barnaamijka isxilqaan, iyadoona ay soo gabagabeeyeen madaxda dawladda dhexe iyo wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya shaqadii ay ka hayeen xarunta tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed. maanta ayaa si toos ah waxaa lagu daafuray xarunta tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed in ay barnaamijka isxilqaan ka qayb qaataan dhalinyarada gobolka Banaadir ee ka kala yimid 17 degmo ee gobolka. cabdifitaax maxamed makaraan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir oo madasha xarunta tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada 17 degmo ee gobolka Banaadir ay ka go'an tahay sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen barnaamijkan isxilqaan oo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Soomaaliya. dhalinyarada gobolka Banaadir waxay ka jawaabaysaa baaqi ahay in dalkan lagu dhiso isxilqaan, waxaana diyaar u nahay maanta inaan ka qayb qaadanno iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horeysay. waxaan u diyaarin doonaa insha Allah tacaala 17 degmo inay maalin walba degmo ay imaado dhalinyaradiisa ee ku dhaqan gobolka Banaadir. degmo walbana waxa u qorsheena 100 dhalinyaro ah. sidoo kale Basma Caamir Shakeeti gudoomiyaha dhanka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir oo dhankeeda kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay ku amaantay dhalinyarada 17 degmo ee gobolka Banaadir sida ay ugu go'an tahay in barnaamijka isxilqaan ay ku dhisaan dalkooda, iyadoona ugu baaqday bulshada qaybaheeda kala duwan inay ka qayb qaataan barnaamijka isxilqaan oo dib loogu dhisayo goobaha danta guud oo ka muuqanayo burburka xooggan. maamulka gobolka Banaadir maanta sidaad u jeedaan dhalinyaradii gobolka Banaadir oo hogaaminayo gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda inay diyaar u yihiin inay kaalintooda ka geystaan ee maalin walbana ee oo calaameeyay gudoomiyihii dhalinyarada degmo walbana ee maalin walba ee ka imaanayaan 100 dhalinyaro ah wixii dhiman inay dhameystiraan. aad iyo aad aan diyaar ugu nahay haddaan maamulka gobolka Banaadir nahay inaan wax badan ka qabanno isxilqaan oo gobolka Banaadir loogu qabanayo. maxamed cabdullaahi tuulax gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo dhankiisa warbaahinta kula hadlay xarunta tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in maanta la taagan yahay waqtigii dhalinyaradu ay si iska wax u qabso ay ugu dhisan lahaayeen dalkooda hooyo. marka laga soo tago in madaxda dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya ay ka qayb qaataan barnaamijka isxilqaan, bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa u muuqanaya in ay u hoggaansameen baaqii madaxweynaha dalka Soomaaliya ee ahaa in si iska wax u qabso loogu dhiso goobaha danta guud. Mustafa Xasan Cabdi, wararka TV-ga STN, magaalada caasimadda ee Muqdisho.